system كجري أول شقين هاي فرصة كوني ما تنوتها إلى أن يرسل غير بشان فورم كان أنا أقول مع فرناي لقال فورمس لقال فورمس حاول أرجع إليه لقال هو رجع سوماليا مو دوين سام كمان هاي ولقوا وأرد ودول ومخل يعني وما أي حد من الحانة لقال هو حاول هذا إن أقول في القرن إذا جوي كان يرد الدول من الدرك كان يرد الخير هذا بس دليلتي يدولتي مو ولا شيء ومسيك دعوتي كل ما يشعبك نور شودي دواعي waxay u baahan tahay daraasado gaar ah in laga sameeyo iyada kaligeed intaas oo buug laga qoro ayay u baahan tahay laakiin dambiga sababba abuuraysa marka sababaha in la dagaalamo inay muhiim tahay baan u maleeyaa halkaa in laga abaari karo qodobka koowaad aan leeyahay sidee dambiyada loo dhimi karaa waxay tahay horta bal dadka in la ogeysiiyo maxaa dambi ah shuruucda waddanka in dhallinyaradii la baro dadka laga wacyigeliyo maxaa dembi ah maxaase dembi ah inkastoo in badan loo ogahay dambiyadu iska muuqdaan haddana wax badan oo waxaa jira waddanka bacdamaa burbur ballaaran uu galay sanado badan oo burbursanaa dhallinyaradii waqtigaa dhalatay iyo kuwii 3 jirka iyo 4 jirka ilaa 10 jirka ilaa 6 jirka ahaa aanay arkin nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn iyo dambiye doona inuu u arko number 1 in dambiyada dadka maxaa ay la baro waxa laga yaabaa inuu abdalashadeeye intuu tago warqad dhalasho ka soo samaysto inuu qofku normal u arko wax caadi u arko maxaa yeelay maalinta dhashay ilaa maalinta arkay inta hadda meeshaan fadhisay inta ay isla fahmeen dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay isla fahmi lahaayeen dalkeena horumar iyo barwaaqo gaari lahaa dhalinyaro dalka kan 73% lagu qiyaasaa inuu dhalinyaro yahay waxaana hubaala kiisaska ugu waaweyn ee dalkan uu ka dhaqaaqi layahay waxaa hortaagan dhalinyaro marka dad iyaga isku jeedo oo mas'uulkoodii iyo mustaqbalkoodii hortaagan ayay noqonayaan dhalinyarada haddii ay siyaasadooda iyo aragtidooda ayna waxba ka bedelin maanta arrinta taagan waxaan talo kusoo jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ama xabsi ha ku jiro ama banaan ha joogo ama shabaab ha jiro ama dawladda ha u shaqeeyo ama dhalinyaro caadi oo waxbarasho ku jirta ha noqdee in agaalisiin dagaalka dhowrsado dhimashada la diida ma dhashaan xornimade inakiciya dhalinyaroy dhiigarkiya warabaha dalkaan ka dhicinoon dhaqsawga xorayne inakiciya dhalinyaroy waxaan rabaa inaan ku bilaabo xog ururintii ay soo sameeyeen dhalinta waxaa ka mid ahay dambiyada ugu badan ee xabsiga loogu jiro waxaa ka mid ah argagixisada dambiyada la xiriira argagixisada dambiyada la xiriira argagixisada ka mid ah dambiyada loogu jiro xabsiyada waxaa wax badan laga sheekeeyay oo xeelaliyaha iyo xildhibaanadu ka sheekeeyeen sida lagu yareyn karo dambiyada iyo sida loogu hortagi karo in ay dhalinyaradu dambiga ku dhiiradaan mar walba waxaan rabaa kaliya inaan ka abaaro arrinta argagixisada anaga garsoorka ciidamada qalabka sida waa garsoorka hadda u xil saaran inuu qaado dambiyada ay galaan kuwa argagixisada ah ama nabadjidka ah oo ummadda dhibaatada ku haayo
argagixiso marka aan ka bilaabno runtii waa arrin caalami ah oo dhibaato badan ku hesho dunida oo dhan. ficil argagixiso marka aad maqasho waxaa kugu soo dhacaya dembi weyn oo khatar ah runtii. meesha uu soo galo ficilkaas marka waxaa ka baxaayo amni iyo deganaanshaa ka baxaysa meeshaas waxaa ka dhammaanayo ka baaba'aayo in haba yaraatay wax horukac ah iyo horumar ah laga sameeya goobtaasi uu soo galo ah ka dhammaanayso. ficilkaas marka yuu lid ku yahay yuuna ku socdaa. ficilkaasi ma kala saaro dawlad iyo shacab toona ma kala saaro, dhalinyaro iyo qof waayeelana ma kala saaro. dhammaan waa aafo dunidan kusoo korortay xilliyadii ugu dambeysay. qof walba oo adduunyada ku nool meeshiisa ku haystaa. waxaan nahay tusaalaha ugu fiican adduunyada oo qofka baadiyaha jooga oo Soomaaliga ah markii la weydiiyo maxaa waaye argagixiso la dhaho gurigiisii uu tagtay si dadban shacabkii noloshoodii dhaawacay kuway dhowrayaano inay ka dhiciyaan ka dhursugi waynage ka baarlamaan ahaanna haddee shuruucdii dalka inay dhallinyaradeeni wax ka fahamsan tahay ama muwaadin kastoo Soomaaliyeed sharcigiisa iyo dalkiisa iyo waxa lagu dhaqo inuu aad u yaqaana aaday muhiim u tahay. waxaad ogtihiin baarlamaanka iyo xukuumaddaba waxay aad ugu howlan yihiin shuruucdii dib u soo celintoodii kuwii jiray cusboonaysiintoodii haddii wax lagu dari karo haddii wax laga bedeli karo iyo haddii aysan jirin kuwo cusub in la sameeyo. waxaa la rabaa marka in aad yacni looga qayb qaato shuruucdaas la samaynayo wixii dhalinyarada ka taabanayo ayagaa dareemaya xanuunka iyo dhibaatada in ay fikirkoodu ay ku soo jeediyaan. waxaad ogtihiin baarlamaanka markii shuruucda la keeno waxay maraan broseskaas la marsiinayo. waxaa ka mid ah in bulshada mararka qaarkood lasoo dhex dhigo oo lagala tashto shuruucda markaas in yacni looga qayb qaato ka beddelka sharciga ama ku darista dhibaatada jirta ee bulshada haysata inaad meeshaas looga bedeli karo iyo in la ogaado dhibaatada iyo dembiyada qofka waxa uu ku galaayo si uu isaga ilaaliyo dembiga in uu galo. at least haddii uu ilaalin waayo xitaa marka uu galo inuu ogyahay ciqaabta uu maraayo si uu ugu talagalo. intaas waxaa sii dheer in ay jirto dhibaato fara badan oo dalkan uu soo maray. maanta dhalinyarada meesha joogto oo ka sheekaynayso ama cilmi baaristaa samaynayso waxaan ognahay in wax dawladnimo soo arkay aysan jirin iyo nidaam haddana ay ku dhiiradeen ay dareemeen iyo wax ka maqan yihiin oo ah dawladnimo nidaam system uu ka maqan yahay. waagii ma jirto marka baarlamaanku uu idinku matalayay odayaal keliya idinku matalayeen ama haween ha ahaado ama rag ha ahaadaan dhalinyara baarlamaanka ku jirto idinla dareemayso dawlad la-aanta idinla soo arkay dhibaatadaas fahmi kara. waxaan laga rabaa marka adinkana inaad ogaatiin inay dad meesha idiin joogaan aad kala qayb qaadanaysaan fikirkiina iyo waxa idinka buuxaayo si aan si wada jir ah wax ugu saxno. gudoomiyaha SYC iyo xubnaha guddiga iyo martisharafka kale miidiyaha dhammaantiin waxaan isku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam kadib wixii la dhihi lahaa intiisii badan walaalaheen iga horreeyaa sheegay. waxaan ku dari lahaa keliyata sida khataraha loo yareyn karo dhowr qodob oo ugu horeyso wacyigelin balaaran oo maaragta qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo maaragtaysto iyo culmaa udiinka Soomaaliyeed.
wixii dastuurka noogu qoran dastuurkay noogu qoran yihiin wixii kale oo dhinaca fahamka diinta islaamka iyo daraasaadka ayaan uga kaashanaynay culamaa u diinka. waa soo gabagabowday aragtiyahaas badan iyo contributionkaas badan oo la soo aruuriyey oo ay ku kooban tahay waxyaabaha hadda aan ka hadlaynay iyo waxyaabo kale oo ku tiro badan oo kusii tiro badan. marka qolo la arkaba fikirkeeda ku habboon meeshaas ayaa la qaatay, waana si kooban haddaan u sheego caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira ee dhalinyarada haysta, sidii looga bixi lahaa, fursadaha jirana looga faa'iidaysan lahaa. kadib aan culimada kusoo gabagabaynay waxyaabihii ay ku dareen ama